بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبا سلام يا دماتين بمالكستا إمرو دونيدا دعالديدا ضعفيدا جوجتان أما كجنوشين با waxaan doonayay inaan la qaybsado maanta bal hadda midnimada iyo faa'iidada ay midnimadu leedahay iyo ummadda Soomaaliyeed si aanay u fahansanin midnimadu waxa ay tahay faa'iidada leedahay. qodobka labaad ee la qaybsanayaana waxa uu noqon doonaa bal hadda jacaylka iyo sida loo fahansan yahay jacaylku wuxuu yahay. Dad fara badan waxaan ka qiiraysan oo ooyay kule dalkaygan jecelahay laakiin dalkay jecel yihiin dalku yahay aan fahmi waayo runtii. taasina waa qodobka jacayl maaha jacaylka caadiga ah jacaylka dalkan ka hadlaynaa. taasina waa qodobka jacaylka iyo dalkaaga jacaylka aad u qabteed iyo sida dalkaaga mataqaanay u jeceshahay. qodobka saddexaadna wuxuu u noqonayaa muwaadinka dhabta ah iyo mataqaanay qofka muwaadinka ah waxyaabaha lagu garto iyo mataqaanay cadaymaha lagu garto dadka muwaadiniinta ah muwaadinka dhabta ah wuxuu leeyahay. haye marka ugu horeysa waxaan kaga bilaabayaa midnimada iyo faa'iidada ay midnimadu leedahay. horta midnimadu waxa weeyaan faa'iido aad iyo aad weyn bay leedahay. inteeni baba lagu sheegay inay midnimadu tahay mataqaanay qodob aad iyo aad muhiim ah dadku inay midoobaan inay faa'iido aad iyo aad weyn ay ku jirto runtii. marka ummadda Soomaaliyeed marka aan dhanka u eego ummadda Soomaaliyeed waa ummad aad iyo aad u yar. gabigoodaba qarada 7ka dadka degan haddii cirka loo badboodo 15 milyan ma gaadhin bay la tahay runtii. wadad aad u yar baynu haddana dalka aad aragtay ee number 7ka ah ee mataqaanay badda inta dhar leeg leh ee nimcada inta leega ay ku jirto barigi iyo badiba ay ku jirto ayaa runtii Ilaahay inoo hibeeyay oo ina siiyay haddana inagoo dad aad iyo aad u yar runtii dad yar baynu dad aad u yar. marka dalka qariirada 7ka maxay tahay ayaa waxa la rabaa in 4 meelood iyo 3 meelood oo kala jara la rabaa oo la kala qaybsado. yaa doonaya inay kala qaybsadaan ay kala jartaan waxa doonaya inay kala qaybsadaan qayb Ethiopia rabta oo Oroma rabta inay mataqaanaa qayb la goodo qaybna waxa rabta dhinaca Kenya in mataqaanaa iyaduna dhinaca ay ka soo gashay dhinaca la goodo. marka dhinacan iyo dhinacan baa la iskaga imanaya dee mataqaanaa waa la kala jarjaraya dalkii si heerka ay u gaaraan ama taqaanaa ugu socdo hamigooda ugu socdo ugu suurta galo waxa weeyaan wax magaratadii dhan baa lagu shaqaystay. wax magaratadii dhan baa qor loo dhiibay. wax magaratadii dhan baa waxa laga dhigay in ay qabiil ku shaqayso in ay dadka walaalaheeda soo layso in ay dadka cadow isaga dhigto in ay dadka isnacbaysiiso in ay ummadda Soomaaliyeed isaga dhigto bahal in iyagu isku yihiin oo ay iyagu isnacab yihiin in ummadda Soomaaliyeed isaga dhigto yacni dad aan isu geli karin dad aan mataqaanaa walaalahayn dad aan dal qaybsan karin dad aan isu iman karin dad la kala ilaalinayo runtii ayay mataqaanaa ku guuleysatay. marka waxa weeyaan qayb dhinaceeda loo haya qayb walba dhinaceeda loo ilaaliyo loo haya. takoor aad iyo aad weyn baa ka socda in dadkii la kala takooriyo la kala ilaalinayo. wax aad iyo aad u yaab leh aan mataqaanaa markaan eego hareeraha markaan eego horta mataqaanaa Ethiopia say doonto ha ahaato ama Tigray ha ahaato ama Xabasha ha ahaato ama mataqaanaa Oromo ha ahaato say doonto ha ahaato Ethiopia qowmiyada aad iyo aad u fara badan baa ku nool oo mataqaanaa kala wada diina oo kala luqada oo aan isku ekayn oo haddana mataqaanaa ku midaysan Ethiopia eriga la yiraahdo Ethiopian baan nahay ku midaysan runtii oo isku haysta. maanta hadda tiraadid Ethiopian kala jarjarayaan mid ka yeelaya ma jirto mid ka yeelaya oo koronaya waaya ma jirto. saa ogtiinba Ethiopia waxay inaga haysataa dhulkeeni qayb bay haysataa Ethiopia oo xukunta ummadii Soomaaliya degan dhulkii laakiin qayb bay haysataa xukunta Ethiopia laakiin qaybtii haysatay ee xukumaysay way ku fulnaan weyday. marka waxay rabtaa inay mataqaanaa ku sii socoto ay qayb kale ku sii darsato ay rabtaa runtii. waxay yaabiyay Ethiopian hadda la sheekeysatid ama Oromada hadda la sheekeysatid qof ku faraxsan dalkiisa inuu kala go'o ama dalkiisa ay dhibaato ka dhacdo ama dadkiisa islaayaan ma jiro runtii. aad iyo aad waxay u jecel yihiin inay dalkooda isku haystaan. Ethiopia oo muqadas uu ku dul dhimanaya waxba way haysanba ka baarash lahayd dhulka jiifada warsanaya hadda ka war haddii Ethiopia kala jab
kugu soo mataqaanaaye marwada laacaya marka wuxuu leeyahay loo kala jaraad way haysanay saas isu haysaneen buu leeyahay hadda waa dad kala diina waa dad kala luqada waa dad mataqaanaaye kala afa waa dad mataqaanaaye kala qoomiyado aan islahayn ah ayaa saa la isku hayaa oo aan la ogolayn inay kala dhaqaaqaan fahamtay because waxay fahansan yihiin midnimadu qiimaha ay leedahay iyo waxa ay tahay ay runtii fahansan yihiin saasay saa tahay ayaa haddana Ethiopia intii soo dushay ay Soomaaliya u timaaday Soomaaliya kala jarjartay way isku dirtay xabaday isugu dhibtay waxay tiri iskumaado islaaya Soomaalidii maxaa garatada ahay ee cawaanka ahay na intay qaadatay qoryihii ayay gam ku iska dhigeen islaaya cadow is wada qaateen calool xuma qabiil walba halka taagan oo buuxda wuxuu hayana garan mayno calool xumada cid uu hayana garan mayno waxa mataqaanaa la yaab leh inay Ethioopiaanku maanta dad weydiisid ay ku oranayaan Soomaaliya kala go'do inay kala go'day ku fiican tahay kulliye ha kala go'do laakiin hadda tira barka waran hadda Ethiopia hadday kala go'do baybu kulliye kala go'ayso marka aqliga isaga siiyay inuu yiraahdo ha kala go'do Soomaaliya anigana Ethiopia ma kala go'ayso tolkaas muxuu ahaa xagu ka yimid aqligaas fariid weeyaan sanacay runtii laakiin inagu waxaanu nahay dad aad iyo aad wax ma garataa oo aan isdaamin oo aad iyo aad u lita ayaynu nahay runtii Soomaali haddaynu nahay qariirada lambar 7ka marka taa eegtid ilaahay mucjisa ilaahay sidoo u sameeyay qariirada lambar 7ka amaarat marka taa eegtid yani waa ajaayib runtii marka saa qariirada lambar 7ka aba ilaahay wuxuu dhigay dad isku wada afa dad isku diina dad isku wada eeg Soomaali ah islaam ah ayuu qariirada lambar 7ka ilaahay ku abuuray badii baad haysataa oo badda ugu dhiga Afrika ayaad haysataa waxaad haysataa dhulkii oo macdan ay ka buuxdo waxaad haysataa dhul beeraadka aad beeraha ka beeranaysay waxaad haysataa batroolkii gaastii oo kaaga buuxa waxaad haysataa buurihii oo afkay nimco aad kala soo baxaysid buuro dahab oo magigan ayaa dalkeena yaala inana waxaynu ku baaba'nay oo aynu ku jabnay inaynu saalugtay soo haysano wax ma garatado intay meelaha soo fariisato ay waxay ku talisaa dalka hala kala gooyo dadkay cadow isaga dhigtaa waxay tiraahdaa qayb bay waxay ugu sheekaysaa ay tiraahdaa qaybtaasay cadow ku ahayska ilaali laakiin waxaan idin sheegay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogtaanba inaanay ummadda Soomaaliyeed cadow isku ahayn ay dad walaala ay yihiin weligoodna aanay kala tegaynin dadka wax ma garatada meelaha intay soo fadhiistaan oo qayb cadow kuga ahayna wax cadow isku ahayn inaanay joogin ilaa iyo raas asayl ilaa iyo raas kabooni dadku dad walaala ah inay yihiin oo hal luqad haysta oo dad walaala ah oo diin wada haysta oo Soomaaliya oo wada isku habaryar eedo habaryar inaabti isku wada ah inay yihiin oo meel ku kala dhaqaaqayn dalkaasina dalka lagu ayimo because ilaahay sida uu u sameeyay lambar 7 ee quruxda badan leh ay u taagnaanayeen runtii sidaas oo ahaanay dadkuna dad walaala caqdada isma qabaan xumaana isma qabaan laakiin waxa la talinayaa halkan aan kala hadlay dadka wax ma garatada ah ee dadka xumaanta dhex dhigaya ee dadka isku diraya ee dabka hurinaya waliba islaamaha waaweyn ee intay social media soo fariistaan dabka saa hurinaya ee dadka isku diraya kule heer dad ba cadow inoo ah cadow Soomaali ku ah ma jiro ana ku sheegay Soomaali cadow ku ah ma jiro dadku waa walaalo Soomaalidu waa walaalo waa dad isku diina waa dad isku diira waa dad mataqaanaa ilaahay si uu wada abuuray for a reason ayuu ilaahay intuu sida ka wada dhigay dabatana qarrada 7ka u dhigay ma ilaahay binu ka hormaadna waxaynu dhahnaa ilaahay maxaad soo kaya ekaysiisay maxaad halkaa noo wada dhigtay maxaad aynka nooga dhigtay maynu dhahnaa hadda waxay noo matarayaan qoqob iyo inaynu isqoqobno iyo inaynu dadka kala qoqobno iyo inaynu dadka isku dirno iyo inaynu xumaan dhex dhigno iyo waxba inoo matarayaan midnimo wax ka faa'iido badan ma jiraan midnimo faa'iidada leedahay waxa weeyaan dalka haddii dadkaas la midayn lahaa wax ma garatadu ka dhex bixi lahayd bari hore ayaynu xidigaha gaari lahayn batroolkiinaynu la soo bixi lahayn gaastiinaynu la soo bixi lahayn beeraheennaynu beeran lahayn warshadaynu dharka ka samaysan lahayn buuraheenna nimcaada ku jirta dahab iyo diinaar waxay tahay waa la soo bixi lahayn waxaan ku ilaah baan ku dhaartay adduunyada dhinaca kale u dhaaf lahayn waa haddii maskaxdiinu dhinac wada shaqaynayso
dad aynu nahay jaha wada leh dad midaysan aynu nahay meel aynu wada soconno dalkeena nimcada ku jirta ilaahay ina tuso oo indhaha inugu soo celiyo ayaynu adduunka dhaafayna marka wax magaratada lugaha dadka haysata ee marba lacagta ilinta jeebada loogu soo rido dadka kala qoqobaysa ee dadka kala haysa ee isku diraysa ee cadowga isaga dhigaysa ee caloosha xanuunaysa caloosha madoobaatay waxaan leeyahay caloosha idin madoobaatay ilaahayga weyna waaxidka ahi ummadda ha idinka dhex qabto ummadda Soomaaliyeed waa walaalo waa mid weligood yaaloodna midkaas ay ahaanayaan meelay kala tagayaan ma jirto qarradaasna saas ay ahaanaysa lambar 7 forever saas ay ahaanaysa weligeed ma kala go'ayso waxaan iga ii diiday markuu ninka Etoobiyaanka iyo ninka Oromada ah ee kala waliba kala qomiyada markay ku dhaaranayaan Ethiopia saas ay ahaanaysa forever weligeed maxaan iga ii diiday inaa Soomaaliya forever saas ay ahaanaysa weligeed maxaan iga ii diiday why marka ma doonayo qof wax ma garata ah intuu ii yimaado inuu iga dhaadhiciyo Soomaaliya way kala go'aysaa ma kala go'ayso Soomaaliya waa mid weligeedna midkaas ay ahaanaysaa saasayna u taagnaanaysaa ummadda inta xumaanta wada ee qoqoban ee dadka isku diraysana joogsadan la fadhiisto joogsada oo fadhiista lacagtan yar xune malayacniga ah jabada la idinka soo buuxinaya qaasan yahay guriga hatta u cararaysaan waa helaysan wax cuntaan dalkiini baa dihaaran dalkiini baa buuxan macalka ka taagan wax walba waa la idin soo saaraya shaqaysta oo dalkiina aamina dadkiinana aamina barad leeyahay talabaad jacayl dalka dalkaagi mataqaanaa ku gali waayay dal shisheeye ku gal muxuu yahay jacaylka dalkaaga ku kala qaybisa tir qaybna waan jecelahay qaybna waan nacbay muxuu yahay adiga hadii weydiinaya muxuu yahay dadka qaar baa inta ma soo fursan ku oranay muwaadin baan ahay dalkayga waan jecelahay qaybna waan nacbay qaybna waan jecelahay waay jacaylka hadduu jacayl dhaba kaa yahay oo aad dalkaaga jeceshahay raas kambooni ilaa raas kacasay dalkaaga waa inuu si ku adaxadaa dadkaaga waa inaad si wada jeclaataa dad muwaadin dhaba tahay weeyaan aad dal jeceshahay maaha dadka inaad kala qoqobtid maaha inaad tahay qaybtana waan jeclaa qaybtana waan jeclaa dadka qaar baa waxay ku soo celceliyeen doqontu 12 indhood bay leedahay 11 ka mid ah tolkad buu ku egtaa midna shisheeyaha iskaga egtaa ama maanta idinka jawaabay in far badan baa ku soo celcelisiin waan idin garanaynta waxay tahay moogta micnaheedu baan idin garanaynin laakiin se doqontan 12 kana ku eegaysa tolkad xabada kalena cadowga iska eegaysa shisheeyaha iska eegaysa maxay tahay talo maxay tahay maxay tahay shisheeyaha cadowga maxay tahay tolka lagu eegayo 12 cadowga xabada lagu eegayo maxay tahay haddii aniga cadow ii jiro oo aan cadow ku eegayo 12 iga focus waxay ku yihiin dadka hareeraha iga xiga ee jiraanka ilaahay shisheeye iyo dawladaha shisheeye ee cadowga ah ayaan ku eegaya 12kayga oo ku furan yihiin laakiin aniga Soomaali iguma furna cadowna iimaha ummad Soomaali aniga cadow iimaha believe me adigu waxa doontaa soo qora tolkay waa Soomaali am Soomaali tolkayna waa Soomaali ana Soomaaliyeed bana laakiin cadow iimaha cadowgayga aan furanayo iyo shishadahayga waxaan ku eeganayo meelaha kan ku eeganaya laakiin sanad dalkayga dib ugu soo noqdo dadkayga ku eego fahanti marka labadeena ba ka saxsan dadka bariyahan waxa iska batay mataqaanaa mahmaahi aan la garanaynin la fahmin waxay tahay la iska soo qorto markuu horse soo fahmo waxay tahay mahmaahadu waxay tahay soo fahmo markuu horse soo qorisaan laakiin qof kula sinjiya oo kula walaala oo kula diina oo wadankii kula leh cadow inaad ku sheegtid markuu horse adag nusqan ku tahay cib adag ku tahay waa ku nusqan ani cadow Soomaali maaha Soomaali isna ma cadow Soomaali waa walaalahay laakiin se dee waxaan ku eegayaa indhahayga kale ee faraha badan leh kobiton buma 12 kaba 12 waxaan ku eegayaa cadowga kale ku eegay day Ethiopia noqotay haday Kenya noqotay haday Nigeria noqotay dadkayga kale ku eeganaya ku furanay laakiin dalkayga inaan dib ugu soo noqdo aan dadkayga dib ugu eeganado cadowga waa habeenka xalay ahaa tagay bas fahanay waa habeenka xalay ahaa tagay marka taasna taas baan kaga tagayaa توقف دنبيسان كهلا يحوي الموادين مكاتاي يا الموادين شيء نسيت هذا الموادين شيء نسيت الموادين تاي تلك الناعة تعيش هاي يا عيد إنه يسوي كاملها تويان وين تعيد وانا كذا تعلاتد وين تعلاتد عيد وانا كذا وين تعلاتد وين تعلاتد عيد هو المر كذا وين تعلاتد وحي هو ناكسن ونفقدنا تكون قيسيد معها شايبتنا تكون قيسيد معها ونقولين تكون قيسيد معها
شخص قفا اسقبتين أما إسليسين يعني إن تدكاغ يدلكاغ دن أدوغ عرفتيد ما وكرامة دري كوكتا مكا وحويان دي أول بموادن ماذا هاي وحا هاي قف شخصيا وشقي سنيي تاد الراعنيي لكن موادن دابا ماذا هاي لكن موادن كدبتا هاي وحي دونيا كوكو دعاني لكن سوا كدادك ميدايا دالك ساي سوكو هاي ويا دادك إيا دالك كميدايا ساي سوكو هاي وحي دونيا كوركاغا كوكو دعاني دادكو هل دادكو هل موادن كدبكا وكا وانا دالكاغا wanaagiisa aad jeclaatid waxa ka soo baxay wanaad jeclaatid wana horumarka dalkaaga ka shaqeysay wana u sheegtid umadaada waxa ay mataqaanay ku horumar lahayd dalkuna inuu mataqaanay ku kala sokeeyo ma markaan dalka ka hadlayo dalku waa inuu ilaa raas asayr ilaa raas gaboni umad ku ahaadaa weeyaan inuu mid aad ka soo aragta wanaagiisa si inaad u aragtid weeyaan isku si inaad u aragtid weeyaan wanaagiisa waxa inta qobada isku soo xidhintay qobada waxay magacada weeytahay waa kan ما مواطن ساكومتي أرنتك سيرن مواطن سومالي صح أنا تاكو تاي مفلينايو متيد سومالي صح you are not متيد سومالي صح إذا لك سوى سومالي صح ذا يدلك سيد الصح ذا وتشعل سيد صح ذا إنه الدفاعية تاس بيلتها مركا أنت سنك تجينا ما أنت عادي أبدا دمتي بيدين سلامة يا كنتي إن أنت أنا وحنا ندري وحمقارات هذا يوم تغان هاي دتك يسكدعدعة يدتك حمان تفيدية يدتك برها بشدة لسه فريستا هذا السقار الدراتية وعن دتك بجلين أنا عن جلين رنتي مالها لسه فريستا يصير هذا راح بتقول على أساس واحد حيته أيان لا يابا والودد آدي أد ذو أنت ددوا وينه وأن سلي يعني واحد عما كسب حياة ما يكون عليه أيان ملت سفريستا ما تودن تلكوا عدوا تلكوا حتى لو واحد لسه قفوين انت عليك بالبطي واحد تلقي واحد كالسه ومطو انا متكو ودا حتى ما هو مطو مدنا ان ليحي سيد مدنا تسودوي سيد مدنا ليحي سيد مدنا تسودوي سو حسوا منافقه dadku waa inay ku sinaan dadku waa inay walaalaha ku wada noqdaan Soomaali waa inay Soomaali ku noqoto saasbad qof hagaagsan ku tahay laakiin si hadii laga arko qaarna inaad leexinaysid qaarna aad soo dhawaysanaysid saa wax kala leedahay niyo munaafiq waa tahay number 1 adban salaam ya dhamaantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh